أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهام. هلو dunidan waxaa ku nool makhluuqaad kala duwan aqwaan ilaahay kala duway xagga diinta dhaqanka midabka iyo muuqaalkaba waxaa jira dad fara badan oo aadan malaynin inay ku nool yihiin dunidan balse ku nool dadkan aan maanta kuugu sheegi doono halkan waxay ka mid yihiin dadka dunida ugu caansan run ahaantii ilaahay ayaa qof walba u abuuray una sameeyey suurad gooniya ilaahay ayaana dhahay walaqad karamnaa bani aadama bini aadamka waan karaamaynay waxaana ka abuurnay suuradda ugu wanaagsan halkan waxaan maanta kuugu soo bandhigayaa dad aad ka yaabaysa waxa ay samayn karaan ama awoodaan iyo qaabka uu u eg yahay muuqaalkooda halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa 5 qof ee ugu layaabka badan dunida shakhsiga koobaad waa Taran Van Hay ninkan ayaa qabsaday wargeysyada caalamka ayaama dhan iyadoo ay dad badan la yaabeen ninkan qisadiisa iyo muuqaalkiisa sawir-qaado u shaqeeya warbaahinada caalamka mid ka mid ah ayaa ku booqday hooyigiisa si uu documentary uga soo diyaariyo sawir-qaadihii ayaa goobta kula kulmay arrin aad uga nixisay kolkii uu guriga u soo galay ayuu wuxuu arkay nin timuhu dhulka u daadsan yihiin ilaa bannaanka qolka ninkan ayaa waxaa madaxa ka asiibay xanuun isagoo jira da'da 25 sano kadibna wuxuu iska xiray madaxii ayaa aad u sii xanuunay ninkan ayaa xilligaas wixii ka dambeeyay go'aansaday inuusan timihiisa dambe iska jarin 50 sano kadib timihiisa ayaa waxay dhaafeen lugihiisa 22 feet culayskooduna waxay noqdeen 23 pounds ninkan ayaa markii la weydiiyay waxa ku kalifay arrintan ayaa waxa uu ku jawaabay xanuun madaxa iga asiibay dartiis ayaa igu kaliftay inaan timahayga mar dambe jarin Taran Van Hay ayaa loo aqoonsaday ninka ugu timaha dheer caalamka ninkan ayaa waxa uu u dhashay dalka Vietnam wuxuuna dhashay sanadu markay ahayd 1936 Taran Van Hay ayaa geeriyooday sanadii 2010 isagoo jira da'da 79 sano dadkiisii ayaa ku tilmaamay inuu ahaa nin naxariis badan oo deeqsi ah dadkana caawin jiray wuxuuna dadka ku daweyn jiray dawooyinka heerbalka shakhsiga labaad ee muuqaalkeena maanta waa Yu Shan Huan waa nin u dhashay dalkaasi China ninkan ayaa muuqaalkiisu ka duwan yahay dadka kale muuqaalkooda 96% ninkan jirkiisa waxaa ku daboolan timo aad u fara badan ninkan ayaa wuxuu dareemayaa raaxo la'aan isagoo sheegay goorta uu jidka marayo inay dadku ku maadeystaan iyagoo la yaaban qaabka uu eg yahay muuqaalkiisa Yu Shan Huan waxa asiibay cudur ku dhaca dadka si naadir ah oo aan fara badnayn cudurkan ayaa magaciisa waxa la yiraahdaa hypertrichosis kaas oo keena koritaanka timaha qofka waana cudur dhif iyo naadir ah Yu Shan Huan ayaa yiri anigu waan ku faraxsanahay qaabka aan u ekahay waana cajiib qof ani ila mid ma jira dunidan balse dadka qaar ayaa noloshaada ku ogoleen wax yar oo nafisa xitaa sababtoo ah dadkaasi waa dadka ku nool nolosha beenta ah naftadoodana aan ku kalsoonayn laakiin waan ku faraxsanahay noloshayda ninkan ayaa waxa uu leeyahay gabar ay isjecel yihiin wuxuuna abuuray website uu ku soo bandhigo sawiradiisa si uu u noqdo qof caan ah oo dunida laga wada yaqaan wuxuuna jecel yahay inuu noqdo dadkan heesaaga ah ee la yiraahdo rock star shakhsiga saddexaad ee aan muuqaalkeena ku soo qaadan doono waa Ekaterina Lizina gabadhan ayaa waxaa loo aqoonsaday gabadha ugu lugaha dheer dunida markay ka soo muuqatay barnaamij la yiraahdo Morning of Hollywood oo lagu wareysto dadka jilaaga ah gabadhan ayaa labadii wariye ee wareysanaya waxay u fuuleen jaranjaro si ay qoorteeda u gaaraan muuqaalkaas ayaa dad badan ka yaabiyay sidoo kale gabadhan ayaa waxay ciyaartaa ciyaarta basketballka waana mid ka mid ah khibradaha ay leedahay gabadhan ayaa u dhalatay dalkaasi Russia dheerarka lugaheeda ayaa waxay gaarayaan 6 feet iyo 9 inchi gabadhan ayaa caan ka noqotay dalkeeda Russia iyadoo loo bixiyay aktaradda ugu dheer caalamka xilliga ay jidka marayso dadka ayaa isku qabsada inay sawir la galaan dadka qaarna waxa ay la yaabihiin muuqaalka dheerarkeeda shakhsiga afaraad ee aan muuqaalkeena ku soo qaadanayno waa Nick Storbell waa ninka ugu carabka dheer dunida aan maanta noolnahay ninkan carabkiisa ayaa cabirkiisu wuxuu gaarayaa 10 cm carabkiisa ayuu wuxuu ku soo taabanayaa sankiisa sidoo kale suxulkiisa ninkan ayaa ah nin majaajilista ah dadkana uga qosliya mucjisadiisa ninkan ayaa galay buugga World Record isagoo loo aqoonsaday shakhsiga ugu carabka dheer dunida da'diisu waa 24 sano jir ka soo jeeda California laakiin dhalashadiisa rasmiga ah ayaa waxay tahay Canadian sidoo kale ninkan waa xirfadle artist ah 2015 ayaa loo aqoonsaday ninka ugu carabka dheer dunida ninkan ayaa yiri dhibka kaliya oo ay haysta ayaa ah inaan waqti badan ku lumiyo xoqidda carabkayga subaxii hore markaan cadaysanayo waayo carabkayga ayaa saa'id u dheer mana gaarsiin karo cadayga intiisa badan shakhsiga sanaad ee ugu layaabka badan dunida ayaa ah Dean Karnazes
madaalaha aan marna neefsan orodyahanada dunida oo dhan waxay istaagaan markay gaaraan goobtii loogu talagalay ee guusha lagu kala qaadayay, laakiin Dean Karnazes marna ma istaago. waa shakhsiga keliya oo dunida ku nool oo aan marna daalin, murqihiisana ma ahan kuwa daalo. ninkan ayaa ordi karo 3 maalmood iyo 3 habeen isagoon marna istaagin. waa ilaahay quwadiisa. ninkan ayaa maalin walba ku orda buuraha Meadows ee ku yaala California. ninkan ayaa ku dhashay magaalada Los Angeles ee dalkaasi Mareykanka sanadu markay ahayd 1962. ninkan ayaa waxaa la yidhi wuxuu orodkiisa ka bilaabay yaraantiisii isagoo guriga orod ka bilaabayo ilaa uu iskoolka tago. ardayda ay isku galaaska ahaayeen ayaa aad ula yaabi jiray ninkan isagoo dhididaya maalin walba fasalka soo galayo, wayna ku maadaysan jireen. ninkan ayaa yidhi maalinta ay ardadu igu qoslaan waxaanba ka sii qaadi jiray farxad iyo dhiirigelin, anigoo guriga haddana wakhtiga iskoolka la iga soo daayo orod ku tegi jiray. ninkan ayaa 3 maalmood iyo 3 habeen ordi karo isagoona daqiiqad istaagayn. Dean Karnazes ayaa yidhi waxaan isku arkay mucjisadan wakhtigan 11 sano jiray oo aan iskoolka dhiganayay. markaan iskoolka ka soo ordo oo aan guriga imaado ma dareemi jirin wax daala. waxaan arkay anigoo u baahan orodka. taasina waa haybad aan dadka kala dheerahay, ayuu hadalkiisa ku soo afjaray. ninkan ayaa caan ka noqday dunida, wuxuuna furtay goobo badan oo ganacsi ah oo ku yaal dalkaasi Mareykanka. waxaana ka mid ah goobahaas Frozen Yogurt Shop. Dean Karnazes ayaa 2014 loo aqoonsaday Best Badies of the Year, shakhsigii ugu jirka quruxda badnaa sanadkaas 2014. gun iyo gunaanadkii kuwaasina waxay ahaayeen 5 qof ee ugu la yaabka badan dunida. intaan barnaamijkan kan xiga kugu arki doono waxaan kaaga tegayaa walaal farxad waartiyo guul aan dhammaan. channelkana sii faafiya, fideogana like saara. mahadsanidin. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.